qaybta kale waa qaybta la yiraahdo maaragtay borotiinka oo loo baahan yahay ama wuxuu cuni karaa kalluun ama wuxuu cuni karaa hilib ama ukun hilibku nooc doona ha noqdo haddii uusan jirooyinka qaarkood qofku qabin kuwaasna borotiin la isku yiraahdaa hal nooc uga filan inuu intaas oo nooc isku jamciyo uma baahna marka hal nooc inuu ka cuno ayaa ku filan haddii yar oo qofkii baahida ka gooyan uu ka cuno uusan daragta iska badin qaybta kale waa waxyaabaha dufanka laga helo dufanka badanaa markii la afurayo kale qofka xoogaa la iskama badiyo cunto dufan badan cuntooyinka aadka u shiilan iyo saas oo kale maaragtay lama isticmaalo cuntooyinka caadiga loo kariyay ayaa fiican oo maaragtay sidooda maaragtay tooska loo kariyo kuwa dufanka badan lagu shiilay oo kale uma fiicna qofka caafimaadkiisa waxyaabo yar oo dufan yar oo maaragtay kuwa dhibaatada lahayn oo maaragtay waxoogaa sida saliid saytuunka iyo saliid macsarada iyo waxyaabo yar oo meel aad u dheer oo kale haddii loo baahdo in looga darsado qaybta afraad iyo shanaad waxa waaye fitamiinada iyo macdanta kuwaasna intooda badan waxaa laga helaa fawaakihda iyo khudrawaadka ama cagaarka iyo maaragtay waxyaabahan ay Soomaalidu fruitka u taqaano oo fawaakihda la yiraahdo kuwaas ayaa waxaa la rabaa waastan cagaarka oo macdantii iyo fitamiinadii ku jiraan iyo waxyaabo kale oo badan oo jirku u baahan yahay qofku inuu badsado ayaa la rabaa oo hataa maaragtay dhowr goor oo kale qofku uu qaato ciyoona way ka baxayaan qofka nashaad fiican waa ay siinayaan mana culays badna runtii hataa markii cuntooyinka caadiga la sameysanayo waxa fiican cuntooyinka kuwa dub kale in la sameysto maalan afurka oo kale meeshii looga afuri lahaa baasto oo kale in maalan haddii la helo lagu afuro kale cunto dub leh sida qamadiga oo kale iyo maaragtay masagada iyo galleyda oo kale digirta oo kale dadku ma jecla laakiin cuntooyinkaas dub kale oo qofkii in wixii ka baxaan fududeynaya inuu qaataa fiican marka khudaarta cagaaran waa sidaas oo kale iyo fruitka laftkooda in ayagana aad loo isticmaalo oo lagu celiyo waxyaabahaas waa waxyaabaha oo qofku ku afurahayo haddii uusan daragta iska badin waxyaabo yar uu ka qaato khudaartaas iyo fawaakidaasna uu ku celcelsho adugu dhowrkii saac markuu joogo waxoogaa wax ka qaato ilaa iyo suxuurta laga gaarayo oo suxuurta uu kusoo gabagabeeyo aad ay u fiicanta inta waxa aad u culays badan cuni lahaa afurka markii laga soo gudbo dadka qaarkood cashayba kusii daraanba intii awooda waliba dhalinyarada u badnaan doonta dadka waaweyn badan inaysan casho awoodin inay ku daraan laga yaabaa laakiin markay salaada ka soo baxaan taraawiixda kale qofku fruits iyo waxaas inuu iska isticmaalo iyo suxuurtii oo suxuurtu waxay u dhigan tahay quraacdii meeshii dadku ay quraacan jireen quraacdu waa muhiim waa waxa qofku uu ku dhaqdhaqaaqi lahaa ku shaqeyn lahaa booski quraacda marka waxa ku jira maadaama la soomeeyay suxuurtii marka inuu qofku gafo ma aha suxuurtii marka qofku markuu suxuuranayana cuntooyin tira badan oo qofka ku soo rogmada maadaama dadka qaarkood markay suxuurtaan ay seexdaan oo kale cunto aad caloosha ka buuxiyo dad la seexatid oo kale jirkaaga ay aadaysaa way kugu soo rogmanaysaa gaas inuu kugu kacsaa laga yaabaa marka in ayadana cunto xadidan oo aan aad u dhib badnayn oo kale qofkii uu cuno laakiin uusan u goynin dada waxa laga yaabaa inta mid wax badan isku riixaan afurkii cunto badan cunaan mana cashayn karaan in hadana suxuuran waayana laga yaabaa maalintii hadana baahi badan qabato habeenkii hadana marka soo socdo marka afurkii la gaaro hadana cunto tira badan uu isku sii riixo oo dhibaato caafimaad aad u badan ay uga timaado ayaa laga yaabaa marka suxuurta ayadana lama gafo joogta maaragtay loo sameeyaa